Haweeney ayaa waxay soo gashay dukaan weyn oo lagu iibiyo dharka carruurta si ay carruurteeda ugu soo iibiso dharka ciida. Waxa ay muraayadda dukaanka ka aragtay wiil dhalinyaro ah oo qiyaastii 30 sano jir ah oo uu la socdo wiil yar oo uu dhalay, kaas oo ay ka muuqato saboolnimo aad u daran. Waxa uu ahaa mid taagan iridda hore ee dukaanka. Waa ay u yeertay, waxa ayna ka dalbatay inay soo galaan dukaanka. Waxa ay u sheegtay aabihii in uu u dooro wiilkiisa yar dharka uu jecel yahay. Aabihiina waxa uu si xishood leh u eegay dharka hortiisa yaal ee carruurta. Waxa uu in badan eegay joog ka mid ah dharkii meesha yaalay asagoo aanan hadlin. Haweeneydii ayaa u soo qabatay wiilkii yaraa dharkii aabihii uu u dooray, waa ayna siisay iyadoo shayda sare ka eegaysa. Farxadda canuga yar iyo qosolka uu aabihii la qoslayo. Aabihii waxa uu aad ugu mahadceliyay haweeneydii. Waxa uu ka baxay dukaankii, waxa uuna aaday gurigiisa asagoo faraxsan farxad aan la qiyaasi karin. Markii haweeneydii ay dhammaysatay dukaamaysiga, waxa ay aaday dukaanka qaybtiisa lacag bixinta. Waxa ay la yaabtay markii ay aragtay rasiidkii lacagta oo aan wax lacag ku qornayn. Markii ay weydiisay ninkii joogay dukaanka, waxa uu ugu jawaabay, qalabka sheega lacagta waxa uu xisaabiyaa tirada badeecada ee uu qofka naga iibsaday, laakiin ma xisaabin karo qiimaha bini'aadantinimada. Oo uu ula jeedo, adiga waxaa fashay asxaan, annagana wax lacaga kama rabno. Isla maalintii markii aabihii uu ku soo noqday gurigiisa asagoo faraxsan, waxa uu go'aansaday inuu qabto shaqo inta tabartiisa ah oo uu ku saacidayo dadka kale. Waxa uu soo qaatay kartoon ay ka buuxaan biyo qabow. Waxa uuna yimi halka dadweynaha ay ka raacaan tareenka xilli cadceedu ay aad u kulushahay. Xilli ay saacadu tahay 2:15 duhurnimo. Waxa uu ahaa mid ku dhex socda gudaha iyo dibadda tareenka. Waxa uuna ku dhawaaqay, yaa doonaya inuu cabo biyo qabow si bilaash ah. Waxa uu siinayay dadka oo dhan caagag ay ku jiraan biyo qabow asagoo dhoola cadeynaya. Kadib waxa uu ku soo noqonayay dadka si uu uga qaato caagaga ay biyaha ka dhammaysteen. Markii uu weydiiyay mid ka mid ah dadkii saarnaa tareenka oo ay ka muuqatay hanti iyo haybad, maxaad sidaan u samaynaysaa? Waxa uu si fudud ugu jawaabay, anigu waxaan ahay shaqaale aan lacag badan ka qaadanin shirkadda uu u shaqeeyo. Waxaana igu xiriira qoys. Lacagta la i siiyana nama kaafiso. Mana awoodo wax kale ee aan sadaqaysto oo aan ahayn biyo qabow. Maalin walba waxa aan talaagada geliyaa 50 caag oo biyo ah si ay u qaboobaan. Waxaanan u qaybiyaa dadka 2:15 duhurnimo maalin walba. Waxaan ogaaday in mar walba oo aan badiyo sadaqada ay arsaaqadu ii kordhayso. Ninkii waa uu dhoola cadeeyay. Waxa uuna siiyay warqad yar oo ay ku qoran tahay telephone number kiisa. Waxaan sugayaa inaad i soo wacdo. Waxaan ku siiyay shaqo. Waxaad noqon doontaa xisaabiyaha guud ee shirkadayda. Maxaa yeelay waxaad tahay qof aamin ah. Si wanaagsan ayaadna hantidayda igu ilaalin doontaa. Shaqo walba oo aad qabanaysa waxaad ku qaban doontaa wajiga Alle.
Aabbihii aad ayuu u farxay, waxa uuna u duceeyay ninkii shaqada siiyay. Waxa uu u soo noqday gurigiisa asagoo faraxsan farxad aan la qiyaasi karin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. mahadsanid.